السلام عليكم أصحاب قالي سلامتين دمانتين meel kastoo adduunka aad ka joogtiin waa saaxiibkiin culus oo madax washkax maanta waxaan rabaa inaan akhriyo qaybta labaad ee sheekooyinka ama part 2 waxaan soo akhrinay part 1 marka shan qofood ayay ahayd part 1 haddana waa shan qofood shantan qofood aan soo xulanayo iyo shantii horeba qaabka aan u xushay waa idin kaga sheekeeyay oo waxay ahayd in aan sheekada akhriyo marka aan la dhaco oo ma aragtay sheekada noqoto sheeko kala araga intaan sawir washkax ku soo qaato aan application-ka keeno mugan application-ka keeno aan soo dhaxgalsho kadib aan magaca fiirsho sababtoo waxa la rabaa waxaan in xaq la ilaasho oo dadkaana inay isku mid yihiin in loo cadeeyo waaye because kun qofooda sheekooyinkan soo qoray 20 qofood ayaan laga soo xulanaya marka waa dareemi kartaa qaabkaas in nasiib loo helo ayay ila muuqataa aniga marka hadda part 2 waaye 3 iyo 4 na way doon dhiban yihiin insha Allah waxaan qiyaasayaa inaad ila socotaan ila socdo hadda waa ku mahadsantihiin ku xirnaashihiina بسم الله أنكو بلاونو زكي محمد محدين زكي وحسو قري إساقا أو جيب كدب قوة تلفون كيسا أيو فريستي وحير كدب وحو مغلي وح جباب عليه انتون نحي أو بودي كلها إلهو الله دبر تكاديك يعني إلا الله دبر تكالا جبتو أو بشكح إكيرتو أو إكا سهل ذاتي إنو موبيل كيسا جبو كوحا أماليها ويران تلفون كي مقدو سوابحي آيفون كوبي تمن الله أما آيفون إلا بنو وتا أملاء أو قدال إنها كلها سدحد إنه نبي كاس ورو كين إن وما سنت هاي زكي قابك قروح بدل أكون من تقول قرطة كاغم هالدلنا ما همبلي يا ويز سي ناصر عبد الناصر اسكده إن مد عبتوي بري دنتي بهيس أيو سو قري إن صاحبك حافظه وذا مروجي سن أيو إيمادي ميدك مركو أركي بو إلميي waxyar kadib talkiisa baa la soo garaacay saaxiibka waxyar markuu hadlay kadib aad buu u sii ilmeeyay dadkii ayaa ku dhaheen niyahow maxaa jira oo soo kordhay oo aad la sii ilmeysay mar kale macnaha kulaha walaashay ayaa isoo wacday ayadana waxay ii sheegtay inuu aabaheed dhintay magac ilaahay cabtooy kawaaba ka dareeyaha ubaleeyaba kawaakii ayoo darad arkayda cabal oo keeda ka maqleed waa warkan dhas waaye ma ahine magac ilaahay samadu ku jira ugu dhaa nooca weligeeba maqlin be bisinko walaashay soo wada aabeeda dhinta kula joog ku maqaya kan wiz cabdinaasir saaxiib waa kaaga mahad celinayna qaabka quruxda badan ee commentiga u soo qortay oo sheekadan quruxda badan aan ugu soo gudbisay thanks waxaa kaloo iyadana soo qortay gabar la yiraahdo hiba moha waxay soo qortay nin faarax la yiraahdo ayaa dukaan ka qaadan jiray deen buug baa u furnaa maalinkii dambe xajka ayuu aaday asoo deentii qaba markuu ka soo laabtay xajka ayuu yimid dukaankii asuu yiri soo bixi buugkii deenta ninkii farxad intuu macnaha intuu deenta bixinayo ayuu mooday macnaha ninkii dukaanka lahaa wuu farxay wuxuu maleynayay ninkan deenta inuu bixinayo camal markaasuu yiri meeshan faarax ku qoran tahay tirtir macnaha faarax meesha ay ku qoran tahay iga tiriir gabi ahaan waxa ku qortaa xaaji faarax ku qor waa isku imaan doona odaga waa mooriyaan soo xajiyaba magacu xaaji leh u badishto waa mahadsantahay hibo thank you waxa kale isagana soo qoray Cabdiraxmaan Axmed Hilin Cabdiraxmaan wuxuu soo qoray gabar aad u fool xun ayaa waxay dhahday in qofkii waad qurux badan tahay dhaha lacag ayaan siinayaa xariif shiid ahaa ayaa arrinka maqlay subaxii ayuu dheelmaday si uu lacag uga helo gabadha macnaha si uu asagana lacag uga soo helo gabadha ayuu macnaha subaxdii u dheelmadaba ninka gabadha gurigeeda ayuu aaday gabadhii ayaa albaabka ka furtay inta uu saas u fiiriyay ayuu gabadhii ku dhahay iska soo xir albaabka abaayo ilaahay irsaaqada bixiye macnaha xariifkan macnaha waxa uu filayay waxa ka weero maahan ku arkaa umaleeyahay qoftan wajiga deen maahine deenyaala loo leeyahay ugu yaraan qoftan candhuufeyna waa u eg tahay sababtoo enikan waxa ka naxshay waa candhuufeyno naaga ilaaha kugu dhaariya dulqaadan karo candhuufeyno naag u eg candhuufeyno u eg yaa dulqaadan karo markani Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay hilin aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa qaabka quruxda badan ugu qayb qaadatay mahadsanid waxaa kaloo iyadana noo soo qortay Caaisha Axmed Caaisha waxay soo qortay mid cabtooy ah ayaa waardiye looga dhigay qabuuraha markaasa kuwa asxaabtiisa ah waxay ku tashteen in ay ka naxiyaan oo ay isaga dhigaan ree akhraad macnaha inay ka naxiyaan oo ree akhraad isaga dhigaan waxayna soo xirteen dhar cadcad ah waxa ogtiin marka ree akhraad iska dhigaa dhar cadcad leh ciraab ogtaa ilaa cadcad iska dhigaa dhar cadcad ku wataan karfan camal markaas ay u yimaadeen asigoo meel jiif
xariifka asoo hurdaayo meel iska hurdaayo loo yimid markaasoo intuu budkii la soo baxay ayuu bursaday nimankii ree aqraadka ka dhigaya ayagaaba la bursaday oday intuu soo kacay oo bursaday markuu daalay cabtoogii ilaa qaba kale waa ka ordeen kulaha ay tiri macnaha markuu daalay ayuu wuxuu yiri cayaarta naga dhaafa ee mid walbo qabrigiisa ha ku laabto xariifka ree aqraadka runta ah qabrida ka soo baxo u qaba hadana waa geesinimada asribar qabriga soo baxo la hadla geesi dhala Caaisha waa mahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinayaa thanks qaabka quruxda badan aan ugu qayb qaadato kaaga mahad celinaa